cooking channel. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabteeda, kusoo dhawaada channelkeyga Nasra Carfaaye cooking channel. Asxaabe, haddii aad nagu cusub tahay soo dhawaaw, haddii aad hore noola joogtana soo dhawaaw mar kaleento. Asxaabe, maanta muuqaalkeen wuxuu ku saabsanaan doonaa insha Allah digaagan hadda waa full wuu dhameystiran yahay, laakiin ani hadda waxaa ka isticmaali doonaa qeyb ilaan ma dhameyn karo hal xabo dhan. muxuu haduu familkaaga weeyaan hal xab dhan waa isticmaali doontaa insha Allah. hadirtan qeybaa ka isticmaali doonaa. asxaabe, maanta digaageena ma lagu sameyn doono isheeg foornada amba saliid ma lagu dubi doono insha Allah. waa uumiteynayna dabka caadiga ku duweynaa, saliid badan ma ku dareen insha Allah. waxaa ka rabaa digaag yar oo iska waxyaabo dhanaan ah u sameyn doona insha Allah. dhicaan yarna u sameyn doona oo uumitaata ka dhiga, kadibna wixii markaas ay heesidid aad ku cuni kartaa insha Allah. marka isla socod wanaagsan. hadirtaan waa soo kala jarana, waa soo diyaarsana. isla socod wanaagsan insha Allah. hadda fridge ka soo bixiyay xoogaa oo banaanka iyaa, laakiin wali barafka sidaa roo ma oga bixin. asxaabi oo u jeedaa dhaxda wali barafkii ay ka leedahay, wali barafka si fiican ma oga bixin, laakiin waa dirqina. waa kala jara. hadda qeybtaana isticmaali doonaa, waa soo dhaqaa, waa soo nadiifina. qeybtaana fridge-ka iskaga celina amba filinjeerka, qeybtaana isticmaali doonaa insha Allah. isla socod wanaagsan. waata asxaabteeda, hadirtaan waa soo dhaqay digaagii, waa soo jarjaray, waa soo gaagaabiyay. waa u jeedaa sidaana usoo yaryareeyay. tan waa lugtii, sidaana usoo yaryareeyay, waa soo nadiifiyay. hadirtaana waa diyaarsanaa marka insha Allah. isla socod wanaagsan. waata asxaabteeda, hadirtaana waa diyaarsanayna insha Allah. marka ugu horeysa waxaa ku darsanaa hal qaando oo qalka tufaaxa ah amba apple cider. hal qaando ku darsanaa. sidoo kale waxaa ku darsanaa jeex liin dhanaan ah. sidoo kale waxaa ku darsanaa hal qaando oo soy sauce ah. soy sauce waa kaas qofka aqoonin waxaa kasoo iibiyay Xayaat Market. screenshot ka qaado. cuntada amba waxyaabahan oo hilibka ka sameysan markaa u isticmaashid amba ku darsatid wuxuu kuu siinaa dhadhan iyo midab qurux badan insha Allah. hal qaando ka isticmaala isaga. sidoo kale meeshan waxaa ku heystaa toon, 3 xabo toon waaweyn aan soo tumay. sidoo kale meeshan waxaa ku heystaa asxaabe waa ay spices masha Allah. waxaa ugu horeeyo kan waxaa waaye paprika powder amba barbarooniga shiidan. sidoo kale meeshan waxaa ku heystaa garam masala oo hal qaando ah. qaandadan yarta aan kusoo cabiray garam masala hal qaando oo qaandadan yarta aan kusoo cabiray. qaandadan yarta haafkeeda oo sanjabiil shiidan waaye. meeshan waxaa ku heystaa qaandadan haafkeeda oo waxaa waaye food color amba zacfaraan. sidoo kale meeshan waxaa ku heystaa qaandadan haafkeeda oo waxaa ah waaye cusbo shiidan waaye. sidoo kale meeshan waxaa ku heystaa grade grams oo jikinka loogu talagalay. hal qaando isagana ka isticmaalooya. sidoo kale meeshan waxaa ku heystaa maraq digaaga qudaarta ka sameysan. maraq digaaga haddii aad neceb tahay cusbo ku bedelo insha Allah. sidoo kale meeshan waxaa ku heystaa filfil shiidan waaye. intaanu ka koobnaan doona spacekeyga insha Allah. intaan space ku darsan doonaa. hadirtaan waa qasaa, waa isdhexgelina insha Allah dhammaan spaceski iyo jikinka insha Allah.
waata asxaabteeda hadeertaan jikinkii aa kusoo laabtay amba digaagii waa ujeedaa 20 daqiiq kadib waa kusoo laabtay sidaanu dhanaanka dhan dhaxda ugu gala hadda toos waa karsaneynaa marka insha Allah digsiga aadeena isla socod wanaagsan waata asxaabteeda digsiga dabka soo saartay waxaa ku shubanaa 2 qaando oo saliid olive ah saliid badan marabo زيت زيتون 2 qaando la isticmaalaa labo asxaabteeda saliid way isoo kulaato waxa ku darsanaa hal xabo basal weyn oo qaabkaas u soo jarjaray hadeertaan basasha gaduudina waa isku soo laabanayna insha Allah waata asxaabteeda hadeertaan oo ku soo laabtay basasha xoogo way ii soo yar shiilantay brown ee noqoto qaarkeed asxaabteeda hadeertaan waxaa ku darsanaa jikinkii oo ii diyaarsanaa hadeertaan waa daboolana insha Allah waxaa sugaa intii oo jikinkii iyo saliidii iyo basashii hadana iskaga huurayaan insha Allah waata asxaabteeda hadeertaan jikinkii aa kusoo laabtay xasameena waa gidgidina marka hadana qaybtan kala ku huurinayna insha Allah soo noqosh wanaagsan waata asxaabteeda hadeertaan jikinkii aa kusoo laabtay ujeeda dheecaan qurux badan oo isaga keligiisa haystay asxaabteeda hadda marka waxaa sameynaa insha Allah waxaa ku darsanaa 1 galaas oo biyo ah biyaha caadiga tubada oo 1 galaas ah isku soo laabanayna insha Allah 1 galaas biyo ma soo dhameystay insha Allah asxaabteeda jikinkii aa kusoo laabtay wili uu badbadooyaa biyaha ma dhameysanin waa ujeedaa waxaa sugeynaa intuu biyaha ka dhameysanaa insha Allah waata asxaabteeda ugu dambeyn waxaa kusoo laabtay digaagii ma sha Allah sidaan quruxda badan oo iigu soo baxay waa ujeedaa dheecaankaas yarka ah waa ku reebanaa hadeertaan waxaa ku darsanaa meeshaan waxaa ku haystaa kabsar caleen aan soo jarjaray hadeertaan dabka waa ka daminaa hadeertaan dabka waa ka damiyay waa soo diyaarsanaynaa insha Allah waxaan arkaynaa sida quruxda badan ee noogu soo baxay insha Allah asxaabay hadeertaan waxaa sameysanaa insha Allah wax yar oo jibsi ah si qadadeeda qado qurux badan oo dhameystiran iigu noqoto jibsiga bardhada waa soo fiiqay wax yar cusbe ah iyo wax yar food color oo green amba cagaar ku soo diray saliida dabka soo saartay way ii kululaatay hadeertaan oo ku shubanaa insha Allah waata asxaabteeda jibsiga hadda diyaar ay tahay saxankana waxaa soo saartay tiish waa saarana si saliid oo iiga sii dhuuko waata asxaabteeda jikinkeena quruxda badan markaa soo diyaarsanay sidaan quruxda badan oo iiga soo baxay waa ujeedin dhicaankaas yarka ah oo u sameeyay sidaas u guduudan yahay u qurux badan yahay meesha waxaa ka muuqda kabsar caleentii korkaas waxaa kaga soo sharxay laba xab basbaas ah sidaas u qurux badan yahay waa ujeedaa sidoo kale meeshan waxaa ku heystaa bariiska ma idiin doobin sababtoo ah janalka hore wuu ugu jiraa waa bariis cad
geesahan waxaa kasoo saaray jibsigii isagana kalarka cagaarka sidaan uu iigu qurux badiyey saxanka. sidoo kale meeshan waxaa ku heystaa salad iyo qajaar barbarooni cagaar insha allah oo ku cuni doono qadadeena. meeshan waxaa ku heystaa biyo caadi ah waaye. meesha waxaa ku heystaa moos iyo bariis ma kala haraamaahinahay Soomaaliyan ahniya waa kaasaa. marka dhicaankaas bariiska lagu shubanaa kadibna waa lagu cunaa digaaga maasha allah saas uu qurux badan yahay. asxaabe marka faa'iideysta insha allah inta haysanin allah siiyo anagana allah noo siyaadi inta ku kulmi doono muuqaalka xiga. waa walaashayna Nasra Carfaayo idinkaga tagaysa khayr iyo caafimaad bashbash iyo barwaaqo insha allah. Nasra